waxa la yiri cimriga oo raagay geel dhalay ayuu ku tusaa ma isdhahaysay madaxweyne Afrikaana oo dal soo maamulay muddo 10 sanadooda ayaa Afrika run u sheegi doona waliba xaalad marka la joogo maanta yaabkeeda leh oo dad fara badan ay isweydiinayaan mar raba sheekada inaan kaaga hor dhaco laakiin ninkan ayaan rabaa inaad si fiican u fiiriso hadalkiisana aad dhageysato waxa uu leeyahay You don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bana. Soo laabta mar kale. Ninkan aad u jeedaan waa madaxweynihii hore ee dalka Kenya, Uhuru Kenyatta. Waa wiilkii Mzee Jomo Kenyatta ee dalkaasi ka noqday madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer maamulayay oo isagoo xilka haya geeriyooday. Ninkanna waa wiilkii uu dhalay ninkaasi oo isna 10 sano Kenya madaxweyne ka soo ahaa. Uhuru Kenyatta waxa uu leeyahay waydii ugu dambeysay waxaan arkayay madax badan iyo dalal fara badan oo Afrikaana oo qayladaan afka furtay oo dhahaya ninkii Donald Trump ahaa ayaa naga jartay lacagihii uu nasiinayay su'aalo badan ayuu isweydiinayaa waxa uu leeyahay war horta Donald Trump dalkiina ayuu madax ka yahay Afrikaanay ma isaga ayaad canshuur bixiyaal u tihiin mise shacab Amerikaana oo Trump madax ka yahay oo maamula ayaad sumoodeen waxa uu Trump sameeyay waa arrin fiican ahaydin noqoto buu leeyahay wake up call baraarug haydin noqoto faham badan naqaata haddaba marka la fiiriyo ninkan hadalka uu jeediyay madax badan iyo dalal badan oo Afrikaana saameynta ay arrintan ku yeelatay warbaahinta adduunka siday u falanqeynaysay arrintii Trump iyo dhaqaalihii uu caalamka ka jiray waliba Afrikaba ugu badnaatay mustaqbalka wadamo fara badan oo Afrikaan oo walaac laga muujinayay iyo hadalkan madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu jeediyay ayaa rabaa bal inaan isugu ka akhriyo barnaamijkan kadibna aad ku fiiriso nolosha dalka aad ka soo jeeday ee aad adigu leedahay iyo waliba isku tashiga waxa la yiraahdo adduunka waxa ay ka dhigan tahay iyo kaalinta madaxdaada oo Soomaalida uga aadan inay bal iyagu ku filnaadaan amnigooda dhaqaalahooda ilbaxnimadooda iyo waliba isku haynta bulshadooda iyo baahitirka dalkooda intaba waayidii ugu dambeysay caalamka waxa ka taagnaa markii Trump uu talada la wareegay walaac fara badan oo dalal fara badan oo Afrikaan ku dhacay waxa ay ka walaacayeen lacagihii kabka ahaa ee Mareykanku uu siinayo oo la joojiyay kadib markii Trump uu hore u sheegay halka dollar ee Mareykanku uu bixinayo waa inuu 3 su'aal ka jawaabo waa kow awoodda Mareykanka iyo waliba ka kanaantiisa muxuu ka gali karaa barwaaqada Mareykanku muxuu ka gali karaa iyo sidoo kale dakhliga iyo Mareykanka waxa soo galaya muxuu ka galaa halkaasi dollar haddii 3 su'aalood midnaba aanu ka jawaabi doonin waa micno darro qarash ku baxaya in la sii bixiyana sax ma aha Mareykanka iyo Trump ayaa sidaa ku gardhigtay arrinta walaac fara badan ayay ku qabatay dalal fara badan oo Afrikaan waxay isweydiiyeen haddii dhaqaalahaasi la idinka jaro ee taageeradii Mareykanku idin siinaya aad weydaan sida hadda dhacdo la weynayaba maxaad filanaysaan walaaca aad qabtaan iyo noloshiina iyo adduunyo noocee ah ayaad wajahaysaan laakiin Uhuru Kenyatta oo ah nin guri madaxtooyada ku soo koray aabihii madax ahaa isagana muddo 10 sano dalkiisa madax ka soo noqday isla markaana faham buuxa ka haysta waaqica nolosha iyo hadallada diblomaasiyaysan iyo sida loo fasiray intaba waxa madaxda Afrikaanka ay ku yiri Afrikooy waad hurdaysaa ka waxa aad aaminsan tihiin iyo waxa adduunka ka jira wax la qaadan karo haba yaraatee ma jirto sababtuna waxay tahay waxaad leedihiin Mareykanka ayaad naga jartay lacagihii uu ina siinayay wuxuu yiri bal aan idin weydiiyay ma Donald Trump ayaad shacab u tihiin haddii aad tihiin madax Afrikaan mase waxaad tihiin shacab oo canshuur bixiyaal Amerikaana oo iyaga mudnayd in loo adeego Trump iyo idin adeegay maxaad siisaan waxa uu sidoo kale yiri bini aadamku waxa fiican garaadkiisa iyo garashadiisa iyo qofnimadiisa iyo jiraalkiisa iyo waliba dawladnimadiisa iyo dalkiisa inuu fahmo kadibna uu ka shaqeeyo waxa uu isagu yahay yuusan ismoodin in isaga loo shaqeeyo tallaabada Mareykanka uu qaaday iyo waliba Donald Trump
ومد أهد ونكسنا يجري ولما إذن نقطة براروك وحصوص على أيا كوين وحاد حد عركتان هنقننا بوكيري مدحدا dalalka Afrika kuwa indhow garada ee waxa horyaala iyo waxa hareerahooda ka dhacaya iyo waxa u muuqanaya kaliya arka noqda buu yiri kuwa iyaga meel fog arka oo higsi leh isla markaana noloshooda maanta aysan u muuqan nolosha jeelasha iyo mustaqbalka iyo isbedelada waaweyn adduunka dhacaya ay u muuqato dib baan rabaa hadalkan inaan hadalku ugu xiro oo aad fahantaba ninkan odaga ah waxa uu banaanka keenay inay sax yihiin in kale adiga iyo garaadkaada bal fikra kadibna xoogaa waqti qaatay waxa tiraadaan waa ninkan ina Kenyatta waa nin qiyaal isaga jira mas waxa tiraada Afrika qiyaal ku nool kadib baad ogaanaysaa waxa laga hadlayay yoolka iyo ujeedka iyo abaarta ay leeyihiin intaba marka aad fiiriso adduunka waxa ka dhacaya waxa la isku haystaa garaadka macmalka ah ayaa dal hebel soo saaray oo ka badiyay dalalkii hore wixii ay haysteen kadibna shirkado waaweyn iyo dalal ayaa bilaayin dollar qasaaray maalmihii ugu dambeeyay 24 saac ugu dambeeyay warbaahinta reer galbeedku waxaas ayay tabanaysay halka madaxda Afrikaanka qaarkood la dhahayay shirkado ajnabiga ayay $100,000 siinayeen si dal hebel uu u taageero kuwa kalena $100 milyan ayay bixinayeen si madaxweyne hebel uu dalkooda u gaaro Aasiyaana laakiin markii aad ka fikirto garaadkii macmalka ahaa ayaa lagu loolamayaa tiknoolajiyada ayaa meel fog laga gaaraya madaxda adduunka ayaa baratamaya oo is haysta da'yartoodii cabaaqrada ahaa ayaa soo saaraya waxyaabo muhiim ah runtii aad bay muhiim u tahay tusaalaan rabaa bal inaan dib ku celiyo sida telefishinka Al Jazeera uu goor dhow wariyay Donald Trump waxyaabaha uu ka mamnuucay adduunka waxa kamid ah in injirka galmada loo isticmaalo waliba aan sharciga ahayn lacag malaayiin dollar dawladda Joe Biden ay ku bixisay oo qasal la geeyay aqlaaqda saliimka marka inta ku cabirto waxaad u jeedaa waxyaabaha qaar ee Trump uu leeyahay waan joojinay meelaha qaar inay sax ahayd sidaas ay leeyihiin dadka aqlaaqda iyo suluukiyaadka iyo discipline-ka ka hadla waxay leeyihiin sax bay ahayd sababta qasal loo geeyay maxay ahayd dooda ugu badan ee qalin maalka carabta aqoonyahanka iyo taxliilayaashu ay falanqeynayaan waxay leeyihiin ujeedadu waxay ahayd taranka reer qasaba in lagu joojiyo lacagtaas 50 milyan ee bacdaas ama injirkaas lagu soo iibiyo si xaddiga iyo taranka loo yareeyo oo la yiraahdo carruurta hal kala fogeeyo dhalmada hal dareemi karta waxyaabahaas oo kale marka lacaga waxa soo kale lagu bixinayay iyo waliba fasahaad akhlaaqeed meelaha qaar in laga joojiyo waa dood maangala oo imaanaysa laakiin ka waran dawladda la rabo in la iska beelo oo dhaqaale la iska siiyo kadibna qaraaraadkooda maalmiga ah loo yeeriyo taamiyay sax noqonaysaa ninkan odaga ah ee muddada dheer Kenya maamulayay Uhuru Kenyatta doodaas ayuu miiska soo saaray waxa uu leeyahay Afrika waa inay iyada isku filnaato waa inaad noqotaan dad jira oo qiyam leh oo macna u sameynaya noloshooda ee aadan noqon dad oo gacanta taagta ee yiraahdo weelkaan wadanaay waxay naloogu rido ee iyaga weelasha wax la soo riday saamiyada lagu ridanayo waa inay wax ku yeeshaan ma aha in lagu handado ayuu yiraahdo ama lagu goodiyo dhaqaalihii aan ku siin jiray ayaan ka joojinayaa waxa la yiri ninka wax uu cuno aan soo saaran karin si xor ah garaadka kiisa ah kama qaado garo go'aan isaga leeyahay haddaba markii aad fiiriso hadalka ninkan Afrika isku ma jirtay dalal ay si gaar ah ugu socotaa waxa uu leeyahay war adinku shacab oo macashur bixiyaal Amerikaanatiin marka la rabo in la difaaco dhaqaale la siiyo qarash la ugu bixiyo maxaa Mareykanka ku darsataan macashur bixiyaalatiin dhinaca kale waxa uu leeyahay waxaan hadda dhacay baraaruka idin noqdaan fahma inaad tihiin dad jira oo sooyaal iyo facaad iyo taariikh iyo jiraal umadeed leh adigaan ku weydiinayaa talaabooyinka Trump uu qaaday ma ku saxnaa marka hadalka ninkan aad ku akhriso Afrika waa Afrikadii uun hurdaysay oo aad adiga ka mid tahay